بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها أغلق سنة رئيس وزارها قولها وزير هذا حل بعنا الله وضع أقل علماء الدينك صلاة الدينتا سراكيش سرسرة قويسك وكبحي ولكن مرحوم عبد الرحمن يريسو هالواليالada gobolka banaadir baan saxaafada iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ilaaha mahad leh oo maanta halkan munaasabadan ducada ah xuskana ah aan ku xasuusanayno marxuum cabdiraxmaan yariisow isugu keenay. الله نحرسته عبد الرحمن يريسو انتي كدمتي مصيبة إلهي وحنا برينا جلدي سي ينحرستي سي إلهي سيو من إلهي سيو عائلة دي قيسسكو دي أصحابتو دي يكولي جوزيبا وحان ليه سمر إيمان الله كل من نوال سيو والله هاللي مرحوم عبد الرحمن يريسو تاريخ دي سيو دميستران مانتا وانا سوين مد بردق ناها ودعو وانا حس عن حسوسنا انه هل يدينا عبد الرحمن يهل وذي الذي حفيظ كلا شقينا يا قاسمياشاها يو دنياش دقمينك واشهدين كعنك حق درنا يا دي شيء إلهينا وحن كبرينا مركله هو ضاوعنا إنه ككعي ضاوع وعفمات بيحسوه هذا الكيق وحبنا وتاريخ أها وناجأها ولقى شيء تلمانت أها ولقى شيء مرحوم عبد الرحمن وحن كبر سنة عبد الرحمن وهوها حديقة في المامايو ودور بيقانه وضد كيف وضل كان كهري حدي لغا هلايو قف يقانه شرعيغا يكلا دنبينتا iyo wadaniyada waxay tahayna waa qofka ugu horeeya iyo ahaa. waxaan rabaa dadka dowladda u shaqeeya ama siyaasadda ku jira laba dhaqan ama laba hadaf iyo ka leeyihiin hawsha ay dowladda u hayaan. Soomaaliya kaliyana ma aha waa caalamka oo dhan waa nala qabaan. waa laba dhaqan oo kala fog. dhaqan wuxuu yahay qofka dowladda u soo shaqo taga wuxuu yahay qof ugu yimid dowladda inuu ka danaysto inuu ka shaqaysto. waa dhaqan jira oo caalamka dhan ka jira. dhaqan kalena wuxuu yahay qof u shaqeeya ummadana u adeega oo aan ka arkayno ummadaha naga horeeya horumarka waxay ku gaareen ay tahay. haddaba qofka dalihiisa u yimaada oo ka shaqaysta waxa weeye waa qof darajo doona. cabdiraxmaan darajo doon ma ahayn. cabdiraxmaan wuxuu lahaa quality ama tayo wuxuu lahaa inuu u shaqeeyo ummadda u shaqeeyo isagoonan darajo haynin ama title weyn haynin yuu ahaa. marka qofka danaystaha ah wuxuu ku soo galaa dowladda inuu title helo. titlekaasna wuxuu ku raadiyaa awood gaara oo uu danihiisa shakhsiga ku fushado inuu helo, hadday tahay dano dhaqaale iyo hadday tahay dano kale oo gufacan. waxa weeye wuxuu fahamsanaa dowladnimadu inay ahayd nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci la ilaaliyo. beesha caalamka dadkooda horumaray iyo kuwa beesha caalamka kuwooda dambeeya oo annaga nalagu tagay nasiib darro waxa weeye labadaas iyo waxay u bataan tan wanaagsan oo ah ummadda in loo shaqeeyo loo adeego iyo ummadda in laga shaqaysto. cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin adeega ah. wuxuu ahaa nin naxariis badan.
وهو من شرعي وإلالية قفك شخص حولي سنو إلى شده محيالي ووحنا ولا بحية ومسؤولية أمد الله هايه ومسؤولية لآمني وهو من آمن وهو من آن قبيالة يوقف عليسي يا إيح عن كل شقيني وهو جيسي مرنا عن قبل مركز تلت متاقل شعب كيسا سيقى صحة إليه وأديه إليه وعي قليه أديه قليه أدارسيه معنى هذه وحيتهاي وحيارها تصالها ولها مفهومك وحيتهاي إنان كوضا برنه وسكرفايس أسمينه ذلك اللي يبدك أسمينه isagoo heli karay inuu faamilkiisa iyo caailaddiisa qoyskiisa la joogo shaqo wanaagsan helo wuxuu arkayay isagoo hadduusan qaban yaa qabanaya maxaa yeelay annagu dalkaanan leenahay dadkaanan leenahay haddaanan sacrifice loo samaynin yaa u samaynaya fakarkuu aaminsanaa kaasuu ahaa ilaahay ha u naxariisto waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ka qaadanno geesinimo wixii dhacay isaga iyo kuwii hore oo horay u fihiiray aysan marna nagu dhalin qalbi jab oo aan xoojinno wixii aan horay wadnay hadday noqoto amniga inaan ka shaqayno hadday noqoto dalkaan inaan horumarinno waxaan u sheegayaa qoyskii uu ka tegey ilmaheennii weeye waxaan ugu waajibaa inaan ka warqabno inaan ogaanno oo aan u buuxino booskooda qoyskiisa iyo qoysaskii ay ka tageen qof kasta oo fihiiray oo naga tirsanaa cadowga nahaya oo aan dagaalka kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan yay taagan yihiin markii ay u dabacdhigi waayeen ciidamadeena geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambeysay ay ka qabsadeen maxaan ku yidhaahdaa berihe iyo mubaarag iyo owdhegle uma bacdhigi karaan laakiin inay qof maskiinah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldoorkeena ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambeysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna iyo cabdiraxmaan iyo dadkii dhintay booskoodii inaan buuxinno aan ku buuxinno geesinimo iyo adadkeen iyo shaqo wanaagsan iyo dowladnimo iyo sharciga inaan ilaalinno maanta waxaan ugu magac darnay stadium koni stadiumkan waxaan ugu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan cabdiraxmaan yariisow yaan ugu magac darnay sacrifice-ku soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tegaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ka qaadannaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadannaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu